بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay maanta inaan wax yaroo tilmaana arrimaheenan khaaska inoo ah ee khaasatan khuseeya doorashooyinka. waxaad moodaa dimuqraadiyadda horta asaaskeeda ugu horeeya dariskeeda ugu horeeya waa doorasho, inay dadka hoggaanka u haya ay si ikhtiyaariya oo xora oo siman oo qof iyo cod ay ku doortaan. taas oo ah aasaaska ugu horeeya iyo dariska ugu horeeya. runtii waxaad moodaa inaynu ku fashilanay, waayo doorasho keliya oo dhacda xilligii loogu talagelay ma jirto. doorasho keliya oo ku dhacda sifo qarannimo ma jirto. qabyaalad iyo qolo iyo magaranaysaa raas baa loola shirayaa dadkii oo xisbiyadii aynu lahayn qabyaaladaha ka baxaan ayaaba iyaga yahay kuwa abuuraya xisbiyadii oo haddana aan gudahooda wax tartani ka furayn, oo wax dimuqraadiyadii ka jirin, oo xisbi walba qof haysto, oo qofkaas kii doono ka eryayo kii doono saarayo, oo noqotay dhexaltooyo laysu dhiibo, oo wax codob bixinay gudaheeda ayna ka dhacayn. adduunyadu maanta waad aragtay waa tuulo yar markaad aragto siday wararku isu gaadhaan. tviyada iyo miidiyaha iyo magaranaysaa meel walba waxaad arkaysaa macluumaad fara badan oo aan markii hore la heli jirin baa la helaa. siday doorashooyinku dadka ugu fudud yihiin waad ogtahay doorashadii iiraan muddo yaroo gaaban lagu qabtay. waad ogtahay doorashadii degdega ahayd ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha faransiisku, tan ingiriiska. yani waxa weeye siday u fudud yihiin in muddo gaaban oo bil ka yar doorashooyin lagu qabto. hadda combyuutarka macluumaadka ku jira adduunyada waa isku mid uun. innagana kaadharkeeniyo waxaynu dee combyuutar bay ku jireen, xaafad walba waxaa loo sameeyey ciddii ka codeyn lahayd. haddana waxaad arkaysaa un maalin walba diiwaangelin cusub iyo nidaam cusub iyo waxaan adduunkaba jirin, oo adduunyaduba ayna isweydiin doorashooyinka in lagu carqaladeeyo doorashooyinkeena. waxaan jecelahay inaynoo fududaato oo dariskaa ugu horeeya horta aan ka gudubno. xisbiyadu inay noqdaan xisbiyado dadka ku jira ay u siman yihiin, xisbiyado gudahooda lagu tartamo. waad aragtay tv-ga qaranka. waxaan jecelahay ergooyin badan baa beryaha keliya wufuud badan iyo rag badan oo mas-uuliyiin qaranka somalilan ayaa waddankan ingiriiska yimaada. dadkaas waxaan jeclaan lahaa inay la socdaan oo ay dhegaystaan habeen walba tvga b b c da. tvga b b c da waa tv miisaaniyadda dowladda laga bixiyo kharashkeeda. siduu dowladda iyo mucaaridka ugu dhexeeyo uu yahay qaran, waayo tvga xukuumaddu male qarankaa leh. markaad qaran la yidhaahdo waa mucaarid iyo muxaafid wax la wadaleeyo oo ka dhexeeya wey. xukuumadduna waa mar walba ninka intay xilka haysa ee la doorto. marka inooma kala qarna in waxaan leeyahay tvga qaranka haddana wuxuu u dhaqmayaa tvga xukuumadda. waxa weeye waxaasi meel ay kaga taal sharcigiisana inuu saa u dhaqmaa ma jirto. shuruucdeena oo dhammi waa shuruuc qurux badan oo wanaagsan oo muwaadinka ilaalinaysa. waxaase inaga maqan ku dhaqankiiba inaga maqan. marka waxaan soo jeedinayaa nimanka ergooyinka ah ee wufuudda ah ee xilalka ka haya qaranka somalilan iyo dadka qurbajoogiba dhammaantood inay wax ku qaataan oo wax ka bartaan adduunyada. ayna noqon un dad un inta xun un geeya ee aniga ee ay ilaaliyaan sida shuruucda waddankan loo ilaaliyo, sida dadka kala diinta ah ee kala afka ah ee kala midabka ah ee kala mabda ah ay dhammaantood mabsuud uga yihiin waddankan ay joogaan ee UK. waxa keenay waxa weeye uun sharcigaa loo siman yahay, xisbigaa loo siman yahay. xisbigaa gudihiisa ninka asalkiisu hindiga yahay ee ka soomaaligu yahay ma uu ka soo bixi karo. cidina qabiil isweydiina, cidina diin isweydiina, cidina midab isweydiina. sharcigaas hadda waa inoo yaallaa ogow. sharciga sinaanta muwaadinku waa inoo yaallaa, waa asaas. qodobada waa asaaska aan labadinin buu ka mid yahay. yaa ku shaqaynayda tawaay ree hebelay baa maalin walba aynu tviyada ka maqlaynaa, idaacadaha ka maqlaynaa. inaynu wax baranno oo aynu aragno waxaanaynu qoranayno ku soconno. waxa weeye bini-aadanku wuxuu qortay hadduu ku socon waayo
ayaan daro dadka waa munaafiqnimada la sheego ee maaragtay rasuulkeena iyo diinteenu bay noo sheegtay in naarta xagga u hooseysa lagu cadaabayo dadka munaafiqiinta ah afkooda iyo qalbigooda islahayn waxay qortaan aan fulinaynin ballanku ka soconaynin markaa waxa weye waxaynu u baahannahay waale ummad baynu nahay islaama oo ummadda islaamkiina waxyaabaha ugu weynay ay isku aamintaa waxa weeye wixii ay ku heshiisay inay fulaan waxay isku aamintaa cadaalad waxaa in badan rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii jihaadkii laga soo noqday dadka asxaabta ay yidhaahdeen uu ku yidhi jihaad kan ka culus baynu maanta gelina kii yaraa baynu kasoo baxnay aada iyo aada ula yaabeen iyagoo jihaadooda khatyaan taagnaa ka culusi ku yahay uu yidhaha rasuul ma mid ka culus baa jira rasuulku wuxuu dhahaa waxaa ka culus nafteenna jihaadka aynu nafteenna la gelayno inay nafteennu laasinto inuu wax alla wixii ilahay naga xaaraamiyey iska xaaraantimeyno wixii inoo xalaaleeyey xalaalayno ballanka oofino oo qof waliba ma garanaysaa sinaanta waddanka loo sinaado oo ninkaa xaakiimka ahee meesha haya uu tacasubka iyo ka baxo exda oo dadka noqdaan dad muwaadiniina oo sharciga lagu hogaaminaya yahay sharci ay siman yihiin war waxaan leeyahay ilaahayna waafajiyo horta nabad baynu haysanaa nabadaan ayaan lagu cayaarin doorashadana si yaroo hawl yar oo fudud baa loo geli karaa lagana bixi karaa waxa weeye waa in la aaminaa doorashada wixii lagu aaminayna waa in lala yimaadaa si nabadgelyo ah oo wanaagsan ilaahay haynagu rido ilaahay midnimadeena hayna tuso ilaahay cadaaladda dad cadaaladda toosiya oo shuruucda dalka ku dhaqma oo xilka ay hayaan muwaadiniinta u sina siday ku dhaarteen dhaarta bal dib nin walaba ugu noqon dhaarta la dhaariyo madaxweynaha wuxuu ku dhaartaa maaha inuu reeraha simo wuxuu ku dhaartaa inuu muwaadiniinta oo dhan fardi ula dhaqmo si siman oo cadaalada ilaahayna waafajiyo guul baa inoo rajaynayaa waa canaan wax badan oo wanaagsanna waa jiraane laakiin waxa la jecel yahay marka bini aadanka waa toosinta ayaa ka qurux badan in lays ammaano marka toosinteena aan wadno ilaahayna hayna waafajiyo subxaanahu watacaala inaynu noqono dadka ku dhaqma shuruucdooda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu